madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanka uu duqeyn dhanka cirka uu ku dilay hogaamiyihii ururka Al-Qaacida ee Ayman al-Zawahiri. Waxa uu sheegay in shakhsigan isaga uu amar ku bixiyay howlgalkaasi oo Sabtidii ka dhacay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. madaxweyne Biden waxa uu sheegay in Ayman al-Zawahiri uu ahaa ku-xigeenka Osama bin Laden isla markaana uu aad ugu lug lahaa weerarkii 11 September ee 2001 lagu qaaday gudaha dalka Mareykanka. Weerarkaasi ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof. Waxa uu sheegay in dilka al-Zawahiri uu soo afjaray xanuunkii hayay qoysaska dadkii waxyeelada ka soo gaartay weerarkaasi. Biden waxa uu sheegay in al-Zawahiri cadaaladda la mariyay, sidaas awgeedna uu meesha ka baxay hogaamiyihii ururka Al-Qaacida. Waxa uu intaasi ku daray in dalka Afghanistan uusan mar dambe noqon doonin meel ay argagixisada gabaad ay ka dhigtaan. saacado ka hor inta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uusan warkan shaacin ayaa afhayeen u hadlay ururka Taliban Sabiixullah al-Mujaahid waxa uu sheegay in Mareykanka uu duqeyn dhanka cirka uu ka fuliyay gudaha magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. waxa uu cambaariyay duqeyntaasi waxaana uu ku tilmaamay ku xadgudub shuruucda caalamiga. saraakiil sarsare oo ka tirsan Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in ay sheegayaan in xubnaha ururka Taliban ay ogaayeen joogitaanka al-Zawahiri ee magaalada Kabul. Arintani ay tahay mid liddi ku ah heshiiskii dhexmaray Mareykanka iyo ururka Taliban ka hor intaysan Afghanistan ka bixin ciidamada Mareykanka. Ayman al-Zawahiri oo u dhashay dalka Masar waxa uu gacan ka geystay dhismaha kooxaha jihadoonka ee gudaha Masar. waxaa lagu tilmaami jiray inuu gacanta midig u ahaa Osama bin Laden uuna wax badan ka abuuray fikradaha ku dhisnaa ururka Al-Qaacida. al-Zawahiri waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ku qaatay iskuul lagu magacaabo Heliopolis, kadib waxa uu ku biiray jaamacadda Qaahira oo ka bartay cilmiga dhakhtarka ee qalliinka guud. ninkan waxa uu ururka Islaamiga ku biiray isagoo aad u daayar, waxaana uu ka tagay meelo kala duwan oo fariisan uu ku lahaa ilaa markii dambe saldhigyo uu ka samaystay dalalka Pakistan iyo Afghanistan. sanadihii midowga Sofiyeetiga ciidamadiisa kala baxay Afghanistan, al-Zawahiri waxa uu sida la rumaysan yahay ku noolaa dalalka Bulgaria, Denmark iyo Switzerland. marar dhowra waxa uu baasaboorro been abuura u adeegsaday safaro uu ku tagay wadamada Balmanis, Austria, Yemen, Iraq, Iran iyo Filibiina. xukuumadda Washington ayaa mar Ayman al-Zawahiri waxay u aqoonsatay ninka labaad ee loogu doonista badan yahay marka laga reebo qofka koowaad oo ahaa Osama bin Laden. waxa uu kaalinta labaad uga jiray liiska dadka loo haystay mas'uuliyadda weerarkii 1998 laga fuliyay safaaradda Mareykanka Nairobi iyo Dar es Salaam. khubarada qaar ayaa rumaysan in uu qayb ka ahaa xubnihii ugu sareeyay ee ka dambeeyay weerarkii September 11 ee 2001, maadaama magaciisa uu ahaa kii labaad ee Osama bin Laden ku jiray liiska 20 argagixisa ee sida weyn loo raadinayay ee Mareykanka. khubarada qaar ayaa tilmaamay in ururka jihadoonka Masar la wareegay Al-Qaacida kadib markii ay isbahaysteen dhammaadkii 90-meeyadii. al-Zawahiri markii ugu dambeysay ee lagu arkay magaalada Host ee bariga Afghanistan bishii Oktoobar 2001, markaasi oo Washington ay bilowday ololaha military ay ku doonaysay in ay ku rido xukuumaddii Taliban ee xilligaasi. isagoo kaashanaya rag ay isku qabiilo yihiin ayaa waxaa u suurta gashay inuu ku dhunto gobolada buuraleyda ee ku teesan xadka u dhexeeya Afghanistan iyo Pakistan. al-Zawahiri ayaa soo muuqday isagoo ka mid ah afhayeenada ugu caansan Al-Qaacida, waxaana uu ka soo muuqday 16 cajaladood oo maqal iyo muuqaal ah 2007, taasi oo 4 jeer oo ka mid ah uu ka muuqday muuqaalka Osama bin Laden.
al-Zawahiri waxa uu ku dhashay caasimadda Masar ee Qaahira Juun 19 1951 waxaana ka soo jeedaa qoys dabaqad hoose oo la yaqaan oo ay ku jiraan dhaqaatiir iyo culimo badan. awowgiisa Rabi al-Zawahiri waxa uu hayay jagada sheekha masjidka Al-Azhar oo ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee barashada diinta Islaamka ee Sunniga ee Bariga Dhexe, halka mid ka mid ah abtiyaashiisna uu ahaa xogayihii ugu horeeyay ee Jaamacadda Carabta. Ayman al-Zawahiri waxa uu ku koray xaafadda lagu magacaabo Maadi ee ku taala koonfurta Qaahira, waxaana si weyn saameyn ugu yeeshay dhalinyaradii qoraalka dalkaasi. Markii uu yaraa ee dugsiga dhiganayay, al-Zawahiri waxa uu ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyadii siyaasadda Islaamka markii la xiray isaga oo 15 sano jir ah, kadib markii uu ku biiray ururka Ikhwaanul Muslimiin ee la mamnuucay dalkaasi. Ikhwaanul Muslimiinka ayaa ka mid ahaa kooxaha ugu faca weyn ee Islaamiyiinta Masar. hase yeeshee dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee al-Zawahiri kama hor istaagin inuu caafimaadkiisa ka barto Jaamacadda Qaahira oo ka qalin jebiyay sanadkii 1974. 6 sano uu ahaa dhakhtarka qaliinka. 1978 waxa uu qaaday shahaadada masterka ee qaliinka. intii u dhaxaysay 1980 ilaa 1981 waxa uu u safray magaalada Peshawar ee Pakistan isagoo shaqaale gargaar oo ka tirsan Bishcas, halkaasi oo ku daaweeyay qaxootigii uu saameeyay dagaaladii Afghanistan. muddadaasi waxa uu dhowr safar ku tagay xadka Afghanistan, halkaasi oo indhihiisa uu ku arkay dagaalka. waxaa la soo warinayaa in aabihiisa Maxamed uu dhintay sanadkii 1995 uu ahaa macallin dhiga culunta caafimaadka, gaar ahaan qaybta daawooyinka. Ayman al-Zawahiri ayaa markii hore bilaabay inuu raaco caadooyinka qoyskiisa, isagoo xarun caafimaad ka hirgeliyay xaafadda ku taala Qaahira, balse durbadii wuxuu soo jiitay hindhaha Islaamiyiinta oo markaasi ku baaqaya in la rido dowladdii Masar ee xilligaasi. waxa uu ku biiray kooxda jihadoonka Islaamiga ee Masar tan ilaa markii la aasaasay 1973. sanadkii 1981 waxaa lala xiray dadkii lagu eedeeyay dilka madaxweynihii Masar ee xilligaasi Anwar al-Saadaad. Saadaad waxa uu ka careysiiyay dadka u ololeeya Islaamiyiinta, isagoo heshiis nabadeed la saxiixday Israa'iil iyo xiritaankii boqolaal ka mid ah dadka naqdiya falalkii amni darada ee xilligaasi. intii lagu guda jiray mid ka mid ah fadhiyadii dacwadda, al-Zawahiri waxa uu muuqday afayeenka eedenayaasha sababtoo waxaa si fiican u yaqaanay luuqadda Ingiriiska, waxaana la duubay isaga oo maxkamadda u sheegaya. al-Zawahiri ayaa la wareegay hoggaanka kooxda kadib markii dib u ifiyay sanadkii 1993, waxaana loo tixgeliyay inuu ahaa shakhsigii ugu weynaa ee ka dambeeyay weerar isxigxiga oo ka dhacay gudaha Masar oo uu ka mid ahaa isku daygii ra'iisul wasaarihii xilligaasi. sanadihii ka dambeeyay ka bixitaankii midowga Sofiyeetiga Afghanistan, al-Zawahiri waxaa la rumaysan yahay inuu deganaa Bulgaria, Denmark iyo Switzerland, waxaana marar badan isticmaali jiray baasabooro been abuur si uu ugu safro dalalka uu doonayay. waxaana la sheegay inuu ku tagay dalalka Austria, Yemen, Ciraaq, Iran iyo Filibiina. kadib geeridii Osama bin Laden ee sanadkii 2011, dhaxal sugaha Ayman al-Zawahiri waxa uu ballan qaaday inuu daacad u yahay Mullah Omar, isagoo wakiil ka ah al-Qaacida iyo ururada hoos yimaada ee gobolka. waxaana haatan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu sheegay in la dilay hogaamiyihii ururka al-Qaacida ee Ayman al-Zawahiri.